beeraleyda magaalada Ceergaabo ay weeliyaan dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Ceergaabo ayaa baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana dadka beeraleyda ay sheegeen in aanay gabi ahaanba beerahoodu aan helinin biyo iyo cid ka caawisa sidii ay wax kala soo bixi lahaayeen iyagoona sheegay in aan xilligan taagu haynin wax soo saarka beerahooda waxayna xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen in si degdeg ah wax looga qabto wax soo saarka beerahooda maadaama ay ahaayeen meesha kaliya ay kala soo bixi lahaayeen nolol maalmeedkooda sidoo kalena waxay sheegeen in dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Ceergaabo aanay gabi ahaanba soo gaadhin wax caawimaha ama taakulo iyagoona sheegay in taakulada loogu talagalay dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Ceergaabo la siiyo shakhsiyaad gaar ah oo aan danyar ahayn waa siday hadalka u dhigeen waxaana iyagu arrimaha iyo arrimo kale ka hadlaya hadaladoodii kamid ahaa beeraleydii iyo danyartii mudane madaxweyne waxaanu ka hadlaynaa waxaadna tiri beeraha la fasho oo hala iska daayo wixii dibadda ka yimaada beerihii gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo waa gasiirad dalagii baa naga qalalay mudane madaxweyne biyo ma haysano beeraha waanu beernaa haddana madaxweyne waxaanu ku ridnaa ciidda cuntaa biyo ma looma keeno cagafyana looma qodo maxay haytay qalab kale aanu beeraha ku qodano mudane madaxweyne cidnama siiso mudane madaxweyne haddaanu nahay beerihii Ceergaabo aad iyo aad baanu u cabanaynaa gobolka Sanaag haddaanu nahay gobolada kale masaakintooda waa leega aqalaa loo dhisaa anagu ma aragno goboladuna ka mid yahay gobolka Sanaag gobolada kale beeraha loo qoday iskaashata ah anagu ma aragno gobolka Sanaag haddaanu nahay gobolka Sanaag dadweynaheeda masaakiintoodu waa dulmayiin aad bay u dulmayiin waxaanu ka hadlaynaa baahi maguuraan noqotay oo aan dawlad lahayn baana haysata dadka gobolka gudihiisa ee agaarkiisa ku nool afar meelood marka laga dhigo meel baa wax loo tuurtuura abaarna noqotay oo dumarkii yaaci jiray oo warwareegi jiray meel wax uga warwareegan waa waayeen iyaga way tariixeen way jiifaan guriyaha hoostooda jiifaan iyaga iyo caruurtoodii citaa kulaynayso waxay sataana ma jirto baadiya intiisa badan way ka daran tahay gobolka iyaga dhulkii aanu beeran lahayn ee xooluhu daaqayn ee banaanada ahaa riigag baanu la rabnaa inaanu beero dawladdu nagu gacan qabataa baanu rabnaa inta aanu wax la soo baxaynona wixii aanu wax kula soo bixi lahayn wixii dadku ku noolaan lahaa baanu doonaynaa oo rabnaa midnimada iyada waxaanu u midoobi weynay sabool baanu nahay Sanaag haddaanu nahay saboolnimadaas ku kaya dirtay ururkayga xogogaal baa la yiraahdaa annaga u samaynayna gudiyo daryeela oo kuwa baahan waxooda ku filaysiya oo kuwa soo kordha u hadla ayaanu samaysanaynaa oo u la taagannahay inaanu u shaqayno dadkaas aanu doonaynaa humale gogol male cunno male biyo male beerihii dhulkii waa biyo male dhan xidha malaha gobolka marka looga baxo geeska bariga Ceergaabo dhan xidha male oo gurmato dawladdu si laba degdeg ah noogu soo gurmato dumarkii markay dadkii beeraha lahaa waa baqtiyeen dirtii saasay u qalashay beertan aanu hadda dhex joogno dirtii baa qalashay intii kalena waa ku daba jirtaa beeraha waanu ku noolayn saladkaan iibin jirnay kabasaradaan iibin jirnay dan yar baanu nahay aniga laftigaygu beer baan leeyahay laakiin biyaha baan maxay ahayd wixii galiyay waxaan ku gashado maxay ahayd dadka beerihiisa ku noolayn caruuri waa baqtiyeen beeraha looga shaqeyn jiray ee saladka loo guri jiray iyo kabsarada maxaanu idin leenahay si degdeg ah naloo soo gaadho waqooyi dalkale amira habeenku leeyahaga damanaga taga miyaan waa lagu sugaaya caruurtaadii miyaan ugu maqlay waxaan ka hadlayaa baahida ka jirta gobolka gaar ahaan beerihii uu yidhi madaxweynuhu nin walba halkaa taagan tahay wax ka qabso wadooyinka ilaahay keeno waxa gobolka ka hortaagan ma wax biyaa ee muxuu ahaa tijaarta ma afartin tijaarta baa lagu soo rogaa oo iibiya war maxaa gobolka baqtiyay gobolka maxay hoos loogu eegi waayay gobolku muxuu cunay gobolku muxuu sameeyay maxaa beeri waa biyo ma haysano beer hadaad maqasho nin walba waa yaqaan waa biyo ma hayno oo cagaf ma hayno oo maamul ma hayno oo siid ma hayno oo maamulba ma hayno hadal waxna xarakayaba ma hayno dadka masaakiinta beeruhu de biyo ma haystaan wax ka hadla oo yiraahdo beerihii biyihii ma loo sii daayay iyo biyo ma helantooni ma jirto gobolka Sanaagna waa meesha ugu biyo badan caawimooyinka waa la xareeyaa hoolal waaweyn baa lagu xareeyaa kaarar baa la bixiyaa habeenimada markay tahay waa la isula gudaa
qof waliba qofkiisa inta loo dhiibo buu geeyaa kaadharka reer dad ladan dadkii masaakiinta hadda wax iskula meeraan heedeen raashimaan la keenay raashimadii talomeeye raashimadii xagaal hay'adihiisa soo sakhiro ma arkaan inta loo keenaa baa qaadata iyo bakhaarada iyo tijaarta lagu soo rogo masaakiinta iyana hoos bay ka sii xigtaan ku sheegayo siir ma aragto biyo ma aragto baahi kale wax loogama qabto cagaf ma aragto cagafyada dawladda dalka hoos weeg barkhad maxamuud geedi bulsha TV wararka gobolka Sanaag.